oo maalintii Xunayn muslimiintu aaday u badnaayeen mararkay ugu badnaayeen ay kamid ahayd inkastoo aysan ahayn ciidankii ugu badnaayo nabiga raaca Xunayn waxay dhacday sanadii 8 oo hijriyada sanadii 8 waa sanadii Makka la furtay bisha Ramadaan gudihiisa la furtay Makka bisha Shawaal oo ka dambayda Ramadaanka markii Makka la furtay arrimaheedana isku aadeen oo reer Makka way isdhiibeen markii gacanta lagu dhigayna nabigu sallallahu alayhi wasallam way iska afiyay marka laga reebo shakhsiyaad dambiilayaalaha gaar ah waana islaamin badankood kadib arrimaheedii iyo maamulkeedii la habeeyay bishii Shawaal markii la maraa ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa soo gaaray qabaa'il isbahaystay oo duulaan ku soo sababtoo ah Makka furashadeedu arrin lama filaan ay carabta ku noqoto carabtii qabaa'ilkii waaweynaa marna kuma fakarayn in Makka nabigu gacanta ku dhigaa sallallahu alayhi wasallam markii la yiri Makku la wareegay qabaa'ilkii waaweynaa ee Quraysh ka soo haray Hawaazin nimankii la dhigi jiray iyo Thaqiif iyo huwan ama isbahaysi ay lahaayeen oo aad qabaa'il badan oo yaryar ahaa ayaa tashaday waxayna go'aan ku gaareen inuu meeshiisa ay ugu yimaadaan nabiga sallallahu alayhi wasallam mar dambeeyaan meel lagu sugayna meeshiisa loogu tagay nabigu waa maqlay sallallahu alayhi wasallam ciidankaas marka aad u badnaa oo gaalada dawaa qabaa'il aan gabar iyo wiil midna ka soo taganay ahay waxa hogaaminayay amiirkoodii Malik ibn Auf an-Nadri Malik ibn Auf an-Nadri ayaa hogaaminayay nin dhalinyaro ah markaas wuxuu amray hal shay laga soo teeyo hal shay waa in xoolaha la soo wada caruurtana la soo wada dumarka la soo wada hal shay laga tagay waxa la sameeyay yiri qabiil walba aaga ay ka dagaalamayaan dhabarkooda la taaga xoolaha dumarka caruurta dad cararto halkaad u socotaan xaka dambeey wax alla waxaad leeyahay la wareegay caruurtii dumarkii xoolihii halkaad aaday marka darbiyaha aaday iyo buura wax ku dambeeya male marka imma geeri wa imma gul saas ugu talagal la soo wad ciidankaas marka hadee tira aad u weyn yahay nabigu markuu maqlay sallallahu alayhi wasallam 10,000 oo ciidan oo Makka ku furtay oo ansaar iyo muhaajiriin iyo qabaa'il Madiina dariskeeda ahaa ee muslimiin ah iyo 2,000 oo dadkii Makka markii la furtay islaamay mar dhowba islaamay intaas la soo aaday nabigu sallallahu alayhi wasallam iidankii si loo socday labada ogee ilaa nimankii meesha Makka agteeda ahay baan maray soo maray meel waadi ah oo u dhaxayda Makka iyo Daa'if Xunayntu waa meeshaas waa waadi Makka iyo Daa'if u dhaxay halkaas ay ila soo galeen intaysan marka soo gaarin meeshaas meel la yiraahdo Awdaas ay degeen markay degeena oday waxa hadlay la dhigi jiray Durayd ibn Sima oo nin daa oo indhabeelay gees caana ahaa jiray nimanka gaalada u duulaanka la socdo kamidi wiil dhalinyaraha ciidanka hogaanka u haya Malik ibn Auf an-Nadr odagu haduu dhacay markaas uu yiri meeshan deganahay waa halkee markaas la yiri waa waadi Awdaas waa goobtii farda loogu talagalay inay ka dagaalamaan bacaad maahan iyo ruub agta hoos u galay dhagax qoobka ka dilayna maahan meel fiican degana markaas uu yiri waa maxay waxa aan maqlay cabaadka geela iyo cida ariga
iyo dumarka hadla iyo caruurta booyayda xayhi markaas la yiri Malik ibn Auf hogaamiyaha wuxuu amray inaan waxba laga soo tagin waxba inaan laga soo tagin waa la wada wixii dadku lahaayeen dad iyo duuyo wuxuuna yiri qabiilka sadamarkiisa la taaga si aysan u cararin markaas yiri raaci dhan ida jiri idu ilaali jiray maragu hogaami jiray waa ida ilaali ما يرد المنهزم شيء ورنين عرري وحري لما أركو نين مرحضو جابو الجابي إسلانا ميشان تاغن أريا دقن عرور مثل ما إريوري نين هدو جابو دوقونا تاي نعص إذا إنات إلالينا إذا رق إناتو قامدا ماهي ويري هدي لقوليستو ودعادوغا جابيدو من يصيفا ku anfacay cadawga ceybsada hadii lagu jabiyana waxba ku baaqi noqolaha ceebtaadi aad keentay goobta waxaan tali jirina taliyay saasuu ku yiri adduqooda iska fariisuy ma ogid sidaasay ku soo dageen Hunayn nabiga sallallahu alayhi wasallam ya ciidankii iska socod oo la moodo cadawgiiba inaan la gaarin salaada soo markay dhalanaydo ila lowga tahay iftiinki iyo mugdiga isku jireen ay hal marroobka uga dhigay fallaan niman aad u shiish badan oo ahay muslimiintii roob aan looga dhigay fallaan iyo seef iyo waran haddana sidii hal nin hal mar u soo booday la ismaba hubsan 12 kun waxa ka soo haray 100 qof ama 8 waa la carab muslimiinta qof walbaaba jihadiis ruuxa boqolna nabigu kabidiya soo haray sallallahu alayhi wasallam ya Abu Bakr iyo Umar markaas nabigu inta jeedal ka saaray daabadiisi uu adawgii weerar ku qaaday hada waa boqol bis asagoo waliba dhuumanayn ee qayliyaya oo la ana nabiyyu la kadib ana ibn Abdul Muttalib anu nabiyana hay been ali maahi من لو قوة يرمه إلى عبد المطلب أنا مركز كدبيري أين يا عباد الله إلي يا عباد الله إلي أنا رسول الله الضوء إلهي عرركو عرر الله صلى الله تحقيق هذا رسولك الله نهي نبي واحد كلن دقي واحد سيرادين وابن لقل إذا دابدوا مركز نبي صلى الله بقاو صارناي عباس iyo ninka la dhigi jiray Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ay ku dhageen nabigi inuu u galo cadawayba ka cabsadeen waar meelaha geesinimada aqli ka baxa ee banu aadanka kale aysan awoodin oo nabigu ku muujiyo geesinimo aan wax la soo garab dhigay jirin waa celinayaan si aysan cadawgu ula galin nabigu Abbas wuxuu ku yiri Abbas oo rag ballan naga dhaxeeyaa jireen ada cod dheer waxa tira ya ashaab ash-shajara ya ashaab ash-shajara saasdhu shajaradu waa geedi bay'atu ridwan nabigu uu kula galay saxaabada 1400 oo saxaabi uu ballan kula galay inaysan cararin ragan ballan lahayna jiray iigu dhawaaq كلمات دي مركو عباس كو دواقay hal mar ay soo rogmaday hatta fardihi wa arareen soma inay celiyaan isku dayaan ki celi waa inta faraska iska daay ha arareen oo ka boodo isagoo kaligiisa soo laaban markay xoogaa isku la yimaadeen nabigu yiri ilaahay u rur sheega qalbigiina ilaahay u rur sheega sacab ciidan inta qaadu gaaladii ku tuur hal mar indhaha ka gashay mid walba indhihiisa intuu ciidda ka bixinaya seef madax looga jiro 6 kun oo caruur iyo dumar ah laga qabsan maalkii dhan wala la wiri odagii taladiisii la diiday waa la eed dhalinyaro weliga oday khabiir oo ka da'weyn waxa laga hadlaa mar haday aqli ku saabsantay wuxuu aday mas'alad diiniya tahay mas'alada la fiiriyo sideeda wuxuu aday mas'alad tahay waxa la yiraahdaa kitaabka nooga fiiriyo
لكن عقل مركي تحي قفك كاد دأد وين لقد ضبين خبير كان ولا تحقليه يا أرنت خبرات أولها اللي هذا لكن واد قودي مسكحدا waa gubatay naga fariiso waxay leedahay maatada oo la gacan galiyo iyo cadow la isku dhiyo 6,000 oo caruurta iyo dumarkii gacanta lagu dhig ka war oo maxaabiis waa 6,000 dhammaan waxay hantirahayeen waa la qabtay raggiina wixii dhintay mar wixii kale waa farxadeen taladii waxay u dhamaatay sidii Durayd ibn Sima hal nin masugin ma dhin hooyada ay meesha taag nin jabay moogta tala ma hayo nin jabay wax jira ma khalaas wixii markii gacanta lagu dhigay waxa dhacday dib 20 maalin kadib ayagoo islaamay inay yimaadeen wixii ragii carab markaas ila rasuulka Allah waa soo islaamay ee waxana la ku caymiyo xoolaha iyo dadka dad iyo duuyo midna lagu ma harin dad iyo duuyo wax lagu haray lama arko rag iska bayhoof iska socdo qabiil dhan oo wax kale lahayn hal riib male ka waran taladan yara soo jeeda meeshaas ay ku dambayda marka waxana la ku caymi nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam laba kala doort xoolihi in la siiyo iyo dadkii in la siiyo labada mid doort illa dadkii dagaalamay lama qadi karo in wax la siiyo ilaahana siiyo waxa qayban in kaga bariya oo in kaga qaada iyaga iska leh xoolaha adoomadana iyaga leh dumarkan iyaga leh aruurta iyaga leh xoolahan iyaga leh ama xoolaha doorta ama dadka war dadkana la siiyo xoola ilaaha si doonay خلاص nabi wuxuu inta Allah hadlay yiri walaalihi weeye waana soo islaameen siiya dadku lixdii kuna la siiyo xoolihiina waa la qayb ayaga laftikooda xoolihi qayba lagu celshay xoolihi qayba lagu celshay maadaama ay soo islaameen oo laakiin siismo hebel intaasi maahan arigaaga ari malid arigi waa la wato mujaahidiina iska leh lama arko adaa goobta keen marka خلاص saasa lagu kala baxay sababtu waxay ahayd ay saxaabadu markii koobaad u carareen waxay ahayd markii 12,000 ay arkeen ay waxay yiraahdeen lan nuqlaba al-yawma min qilla wala maanta yaraan la kaga adkaan tira badana kelimadaas dish waxa la rabaa in ilaahi la tala saaro ee aan tirada la tala saaro kelimadaas jabiday hada waa kelimadaas biska وعلى الربا أسباب تلا إمو احرص على ما ينفعك لكن واستعن بالله الله تلا صار لما دا أسأل لك الربا أسباب تلا إمو لكن أسباب تلا صار إلهي تلا صار هايسكو علينا أسباب إلهي تلا صار